Muuse Coldoon ayaa madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa ka codsaday inay cafis u fidiyaan Cabdimaalig oo xabsi ku jiray in muddo war amuurta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo dirwariyaheena Xasan Maaldidar. hooyo Khadra Maxamed Cabdi waa hooyada dhashay Asma Aadan Cabdi oo dhawaanay kaliyuhu istaageen waxaana ay si naxariis leh uga codsanayaan xukuumadda Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in ay cafis u fidiyaan wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ahaa gudoomiyihii kaalme kuwan isla markaasina ay ahaayeen dadkii masaakiinta ahaa ee uu caawin jiray wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon. dadka maxay hay toolay dawladda iyo wasiirada dhammaan dawladda qaranka oo dhan waxaan ka codsanayaa wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon in xorriyadiisii loo sii daayo oo aan ka codsanayo madaxweynaheena sharafta leh Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo marwadiisa Aamina Waris iyo wasiirada iyo dhammaan dawladda qarankeena oo dhan ay sii daayeen wariyahaas oo loo sii daayo xorriyadiisii waayo waxa weeyaan qof aad iyo aad u qiimo badan xagga bulshada dadka waliba tabaalaysan iyo dadka jilicsan iyo dadka waayeelka ah wuxuu maxay hay tolay taakulaya maxay hay tolay u weydiiya dadka maxay tay sharafta leh haysta xoolaha haysta maalqabeennada ah iyo dadka dibadda ku maqan ayuu maxay hay tay u xiriiriya dadkaas uu yiraahdo maxay hay tay dadkaas sidii loo soo caawin lahaa dadka jilicsan waxa weeye inantayda Asma Aadan Cabdi ayadoo maxay tay aad iyo aad aan u dhibaataysanahay oo dalka gudihiisa aan waxba laga qaban karin oo kaliya ay fadhiyaan ayuu maxay hay tolay codsi noo dalbay aan maxay tay dibadda ku geyno dabeetana lacagtii way noo socotay waxna waan sugaynay dabeeta waa taa maxay hay tolay saa oo lagu xidhay waxaan ka codsanayaa oo aad iyo aad baaq dheer iyo baaq gaaban baa u diraya inuu maxay tay Cabdimaalig Muuse Coldoon loo sii daayo xorriyadiisa si degdeg ah insha Allah biidmillah karim aan weydiisanayaa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh in lagu sii daayo ilaahay dartii maxay hay tolay dadka tabaalaysan maxay tay sidoo u caawinayo oo naxariisanayay in naxariis la isagana lagu eego biidmillah oo ilaahay dartii lagu sii daayo insha Allah biidmillah karim ka codsana madaxweynaha sharafta leh Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo leeyahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba xorriyadiisii soo celi si degdeg ah insha Allah ilaahay dartii ku sii daa biidmillah. Asma Aadan Cabdi oo ah gabadh dhalinyaro ah oo labada kaliyood ay istaageen ay si naxariis leh uga codsanaysaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo inuu cafis u fidiyo wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ay sheegtay in uu caawin jiray si markaasi dalka dibaddiisa loogu qaado maadaama aan halkan waxba looga qaban karin. aniga oo ah Asma Aadan Cabdi halkan waxaan codsi uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ka codsanayo inuu soo daayo Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah shakhsi dadka jilicsan iyo dadka tabaalaysan caawiya oo wada garanaysan sidoo uu caawiyo dad badan oo xanuunsanaya ama bukaan ahaa ama maxay masaakiin ahaa ama dan yar ahaa anigana runtii aan ka mid ahay dadka uu caawiyay oo shaqadeedii uu bartanka uga jiray oo imikadan uu lacag hayo iyo maxayday caawintii imka ay socotay si dalka dibadiisa la igu qaado aan dalka dhexdiisa waxba laga qaban karin madaxweynaha sharafta leh wasiirada marwadiisa inta waxaan ka codsanayaa insha Allah ay soo daayeen Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah shakhsi gudoomiye oo ahaa kaalme kuwan oo dad badan oo masaakiina maxayday caawin jiray codsanayaa waxay tahay gacantayda oo halis ku jirta oo qarxaysa oo dalka dhexdiisa waxba laga qaban kareynin oo lacagtii aan ku bixilaana maxayday iga kala hakatay oo aan sugu kareynba intuu xidhnaanayo inta maxayday jeelka ku jiray waxaan leeyahay si degdeg ah in loo soo daayo nolosheedii gacantaas oo qaraxda bay ku xidhan tahay haday qaraxdana wax la joojin karayo dhiig wax istaagaya ma laha dalka dibadiisa insha Allah waa laga qaban karayaa halkan lagama qaban karayo ilaahay dartii waxaan leeyahay ilaahay dartii u sii daayo shakhsiga isaga ee dadka dad badan buu masaakiin uu biilinayo uu biiluhayay marka dad badan waxaan leeyahay sii daayo waana halkii layga meelay mashiinka tuumbada laga galinay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo ku xidhan magaalada Hargeysa ayaan ilaa hadda la xukumin. Xasan Maaldidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa. war goordhow naga soo gaaray magaalada